laakiin ninka ka jeesta ninka ka gaalooba ninka ku amal fali waaya ninka yiraahda kitaabkani waa dibdhac yiraahda ilaahay waxa uu leeyahay kaasi dhabarkaan ka jabinaynaa waan hoojinaynaa wuxuu ku noolaalin nolol qaraad oo fool xun ayuu adduunka iyo aakhiraba ku noolaan ilaahay waxa uu yiri waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma ilaahay waxa uu leeyahay ninka ka jeesta an dhikri kitaabkayga ninka ka jeesta waanadayda ninka ka jeesta quraanka ka jeesta xaqan ka jeesta hanuunka ka jeesta ilaahay waxa uu leeyahay fa inna lahu ka waxa usugnaatay adduunka ma'ishatan nolol dankan oo qaraad ayaa usugan nolol qaraad cidhiidhi buu ku nool yahay qalaq buu ku nool yahay waswas baa dilay wuxuu u dhow yahay inuu istoogto oo istilo ayuu u dhow yahay wanahshuruhu waxaan soo xashirinaynaa maalinka qiyaamahana acma isaga oo indhala khalaa'iqdii baa la horkeeni nabi maxamed baa la horkeeni anbiyaadii ilaahay baa la horkeeni waxa la horkeeni dadkii wanaagsanaa ayaa la horkeeni isaga oo indhala oo la duleeyay oo fool xun markaas oo qaala rabbi lima hashartani a'ma ilaahu maashan maxaad ii keentay amaama alkhalaa'iq min aljinni wal ins wal malak ilaahu hortooda aniga oo indhala maxaa ii keentay ilaahay waxa uu ku leeyahay qaala kadalik wasida xukumkayagi atadka aayatuna aayadaha yagi baa ku yimid quraanki baa ku yimid nabi muhammad baa ku yimid sallallahu alayhi wa sallam atadka aayatuna fanasitaha wa iska ilowday wa diiday kumaad amal falin waxa tiri quraankani waa dibdhac maxaa tiri nolol ma aha ba tiri kitaabkan quraanki ilaahay waxa uu leeyahay wa kadhalika tunsa sidaas naarta inta lagu tuuro adigana lagu iloobi ninka kitaabkan quraanka ka jeesta ninka ku amal fali waaya ilaahay waxa uu ku salidaa shaytaan ayuu ku salidaa xumaan oo dhan buu u jilciyaa xumaan oo dhan buu tusiyaa nolol xun oo dhan ayuu qofkaasi ku jira waswaas iyo qalaq ayaa dila ilaahay waxa uu yiri waman ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytaanan fahuwa lahu qariin ninka diintan ka jeesta quraanka ka jeesta waxaan ku salladnaa buu ilaahay yiri waxaan la xiriirinaa shaytaan ayaa la xiriirinaa jin baan la xiriirinaa waswaas baan la xiriirinaa qalaq baan la xiriirinaa waligii guriyo fiican ku jiro waligii dumar qurux badan ha qabo waligii baabuurku doona ha wato nolol cidhiidhiyo oo qaraad oo aad u foolxun ayuu ku nool yahay hayalay ruuxda xaq sii waaye ruuxdani waxay agtiisa quraan bay u baahan tahay salaad bay u baahan tahay dhikri bay u baahan tahay ruuxdii cuntadeedii ayay weyday qalaq ayuu ku nool yahay qofkii kitaabkan quraankii waa shifa waa caafimaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay shifa dawo ilaahay ma oran dawada waxa loo qaataa in caafimaad lagu gaaro ilaahay waxa uu leeyahay maya isagu dawo ma aha waa caafimaad ba kitaabkan quraankii ilaahay waxa uu yiri qul huwa lil ladina aamanu hudan wa shifaa hanuun iyo caafimaad buu yahay buu ilaahay yiri kitaabkan quraankii kitaabkan maanta ay yiraahdeen kuwii aqli gaabka ahaa kuwii maanka yaraa waxay yiraahdeen kitaabkii quraanka ayuu badsado uu ku waashay kitaabkii quraanku aad u akhriyo kitaabkii baa maray kitaabkii baabuur baa kitaabkii baa maray uu waashay maxay kitaabkii buu badsaday ayuu leeyahay quraanku ma mid lagu waasha quraanku ma mid lagu waasha ilaahay baa nabigiisa ku yiri taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa rasuulkii hayo qur'aan inaad ku waalatid inaad xumaan ku xumaatid kuma soo dajin waa izzi waa sharaf وكرامه ووناك وعافمات إلهي ليه سبحانه وتعالى قرآن كني وحكا عافنيا شهواتك إيا شبهاتك إيا أمراض البدنية إيا أمراض النفسية انت بكتابك قرآنك وكا عافنيا إمامك العلامة ابن القيم رحمه الله أيا وحا يري ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه علمه من علمه وجهله من جهل كتابك قرآنك waxa uu yiri cudur ma jiro illa dawadiisu way ku jirtaa hal garto ama yaa la garin way ku jirtaa idan ikhwani fillah qofka inoogu aqliga badan inoogu wanaagsan inoogu fadliga badan inoogu quruxda badani waa qofka kitaabka ilaahay dusha ka qabta
qofka kitaabka ilaahay qayba ee xafida kaasa inoogu fiican haba ka dhasho reer gaaban laan gaaba haba noqdo habiyaan la garanin qamiiskiisu haba cawlnaado maradiisu haba cawlnaato guri yaroo jiingada haba ka soo tooso kaasa ilaahay agtiisa inoogu fiican kaasa inoogu fadli badan kaasa malaa'iktu ay la socotaa nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu rawahu al-bukhari waxa inigu khayr badan buu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam man ta'allama al-qur'an ninka qur'aanka barta أحكامتي برتي حفظي سيبو حفظي معنيه سيبو برتي تجويدك سيبو برتي وعلمه دتكو برايا مركا مساجدكو كبرايا قريه كبرايا مال والبا أيو أمد الدين تي إسلام كي أيو قرآن كي أيو دين دتك قاسينيا كاسا أهلك إلهيا